28 maalmood oo dunidu ay daawanaysay waxa ka soconaya garoomada khaliijka ee ku yaala wadanka Qatar 32 kooxood oo ka socday dunida oo halkaasi ku hirdamaya iyo 64 ciyaarood oo ay hareeyeen xamaasadda iyo xafiiltanka dhaxmaraya qowmiyadaha iyo qaramada dunida ee ku fogaana daawashada ciyaarahaasi waxa guul taariikhi ah caawa kala hoyday xulka qaranka Argentina kuwaasi oo mar saddexaad la hoyday koobkii dahabka laga malaasay ee dunida ay ku hirdamaysay mucjisooyinkii ka dhacay garoonka Loozele ka dhacaysay ciyaartan kaba dambaysta ayaa waxay ahayd markii Faransiisku ay keeneen muddo 2 daqiiqo ah 2 gool taasi oo ciyaarta u dirtay in lagu daro 30 daqiiqo oo dheeraad ah hase yeeshee markii 30 daqiiqo ay dhamaadeen ayaa ciyaartu waxay dhaafi weyday 3 gool iyo 3 gool ugu dambeyntiina waxa lagu kala baxay gool kulaada mar rigoore oo ay guusha ku raacday xulka wadanka Argentina taariikh ahaan koobka dunida waxay ku guuleysatay 2 jeer oo hore markana waa markii saddexaad ay taabaan kuna guuleystaan koobka dahabka ah ee kubadda cagta dunida waxa kale oo sanadkii la soo dhaafay 2021 ay sidoo kale ku guuleysteen koobka qaaradda ay ka tirsan yihiin ee loo yaqaan Copa America caawa ayaa waxa si aad looga dabaaldegaya oo dabaaldegu uu hareeyay caasimadda wadanka Argentina ee Buenos Aires iyo guud ahaan koonfurta America oo uu ka degi doono koobkan dunidu isku jartay ee Qatar lagu dagaalamayo 28 maalmood ee la soo dhaafay marka la eego mucjisooyinka ka dhacay garoonka Loozele ee wadanka Qatar iyo jabka ka raacay xulka Faransiiska waxa la soo xasuusanayaa mahmaahdii Soomaaliyeed ahayd Faransiis jab oo waxa ku dhacay jaciyo baaruud waa murti ay dad badan oo Soomaaliyeed xasuustaan hase yeeshee caawa ka muuqatay garoonka Loozele kubadda cagta ee wadanka Qatar oo Argentina ay ku hanatay guusheedii saddexaad ee koobka dahabka ee dunida Qatar oo dal ahaan marti gelisay ciyaaraha koobka dunida waxay qoraysay taariikh gaar oo lama ilaawana waxay noqotay dalkii ugu horeeyay ee marti geliyay koobka dunida kaasi oo noqday kii ugu qaalisanaa sababtoo ah waxa ay ku kharash garaysay lacagteedii khasnadaha karoorneyd oo gaaraysay in ka badan 200 bilyan oo dollarka Mareykanka ah waana kharash aanay sahlanayn in dib loo arko dal ku bixiyay martigelinta ciyaaraha bandhiga dunida ugu weyn ee koobka adduunka bariga dhexe ayaa taariikh gaar ka dhaxlay martigelinta koobka adduunka oo gobolkooda ugu yimi Afrika iyo dalalka Carbeedna waxa ay ku naaloonayaan taariikh ay mas'uul ka ahayd Morocco oo soo gaadhay afardhamaadka koobka adduunka oo weligeed aan lagu arkin xul Afrika ah iyo mid Carbeed toona